asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybta xigtaa ee sheekada ku saabsan xaaskayga jinbay ka ahaatay markaani waxaad u malaysaa qaybihii ugu xasaasisanaa sheekada inay maraysa inkastoo aynay kow iyo laba joogin sheekadu oo micno iyo qiimo kale ay xambaarsan tahay. waxaa tarjumay saaxiibkay cabdiraxmaan xasan anteeno waxay ku bilaabanaysaa markii ay dibqalloocyadii ay bilaabeen inay nagu wareegsadaan oo ay yaqiinsanay in ayna qaarijin karaan aniga iyo Shiriin. waxaa dhacday dibqalloocyadii inay dibgurasho ay sameeyeen iyagoo halkii ay naga dabargoyn lahaayeen isku bedelay qiic kadibna naga qarsoomay. Shiriin intaasi oo dhan indhaha ayay isku haysaa halka anigana aan daawanaya waxa meesha ka dhacaya, balse markii ay dibgurasho ay sameeyeen ayaa dhowr mar Shiriin aan jugsiiyay si ay u aragto waxa dhacaya. markii indhihii ay kala qaadayna dibqalloocyadii qiic ayay isku bedeleen, halkii ay ka yimaadeen ayayna ku laabteen. Shiriin ayaa markaasi waxaan bilaabay in aan weydiiyo su'aalo ah maxaa dhacay, xaggaysa aadeen, ma badbaadna iyo arrimo kale. balse Shiriin marnaba iima aysan jawaabin. anigana waxaan gudagalay inaan hareerahayga aan fiirfiiriyo. waa intaasoo waxa meesha jooga ay riyo ay yihiin, balse waxaan yaqiinsaday in waxaan arkaya aysan riyo ahayn oo xaqiiqo ay tahay. Shiriin markii waxa dhacay ay aragtay ayaa wejigeedii murug xoogan ay ka muuqatay, iyada oo madaxa haysata ayayna fariisatay, sidoo kalena ilmada ay ka qubanayso. anigana waan yaabay oo waxaan isweydiiyay waxa dhacay, ileen halkii ay ka farxi lahayd maadaama dhimashaan ka badbaadnay waaba ay ooyeysaa. Shiriin ayaa markaasi waxay iigu jawaabtay dibqalloocyadii dib ayaa loo celiyay, tanina waxay la mid tahay inaysanna dili doonin. horey uma aysan dhicin in dibqalloocyadaani loo yeeray iyaga oo wax dabargoynaya dib ay u laabtaan. markaas ayaan la yaabay jawaabteeda, waxaana weydiiyey haatan marba haddii aan dhimashadii ka badbaadna maxaa xiga oo haray. waxay iigu jawaabtay waan wareersanahay xasanow, aad ayaana u wareersanahay, mana garanayo wixii aan fali lahayn. waxaan dareemayaa inaan dhunnay, weliba dhumow aanan horey aanan u dareemin. mana aqaana wixii aan samayn lahayn, adiga ii sheeg maxaan samaynaa, bal markaane adiga talada keen oo wax sheeg. cajab ayaan idhi, waaba Shiriin oo aniga i weydiinaysa tallaabada xigta iyo waxa aan fali lahayn. aniga oo yaaban ayaan fiiriyay dhankii odayaasha qaansada ilaalinaya, balse waxba uma jeedo. kaalay meelay ka baxeen adiga sheeg. markaas baan Shiriin waxaan ku idhi, fiiri Shiriinay, odayaashii way qarsoomeen, sidee ayay wax u jiraan? waxaanay u muuqdaan inay iyaga dilkeennii ay iska dhaafeen. kadibna waxaana dhex martay sheeko kooban. waa macquul xasan oo midaas, balse taasi igama hor istaagaysa inaan aniga naftayda aan dilo. haddii ay jirto goob mamnuuc ah, qofkii galana uu dhimanayo, horey ayaan ka geli doonaa si aan u dhinto. adiga soo ma ahan, waxaad dhex geli doontaa adduunkii xasiloonida. maya Shiriin, maxay tahay dhimashada aad ka hadlayso? aniga dareenkayga wuxuu ii sheegayaa inay jirto arrin, waxayna ila muuqataa wax walba hore aad u baratay in ay wax fudud ay yihiin marka loo fiiriyo waxa soo socda ee aan arki doono. ee kaalay nabad kolley, waxaan khasaarayna ma jirtee. Shiriin ayaa markaasi qososhay, kadibna hadalkii qaadatay oo igu tiri, adduunkii waa wareegsamay. walle haddiiba Shiriin ay maanta ay daba socoto xasan, bal nabad aan aragne halka aad nagu hogaamisid. markaas ayaan dhankii qaansooyinka ku soconay, kadibna markii aan gaarnay ayaan waxaan weydiiyey qaansadee ayaan albaabka rasmiga nageyn karaysa oo aan ka galnaa dhexdeeda. waxay iigu jawaabtay, ma garanaya xasanow, ee adiga sheeg dareenkaada muxuu ku leeyahay. markaas baan ka dalbaday in ay i raacdo, waxaana u jihaysta dhankii qaansadii saddexaad. markaas ayay garabka iga taabatay oo tiri, war ninkan waalanow, xaggee baad u socotaa? ma waxaad doonaysaa inaad albaabka gasho adigoo og wixii aan horey ula kulannay? oo ma waddo kale ayaan noo furan ayaan ugu jawaabay. kadibna waxaana dhex martay, haddii ay doonaan inay naga hor istaagaan midaasi way samayn doonaan, balse aniga marka hore waan tijaabinayaa. ma xuma xasanow, balse sidaad ogtahay qaansooyinka waa 5, hal qaanso ayaana saxan. marka haddii aan galna midda qaldan way noo dhammaanaysaa, halkan ayaana labadeena ku dhiman doonaa. maxaa tala ah? bal markaani faraha iga qaad, dareenkayga ayaan raacayaa. wax badan idinka waan idin raacay, natiijadana waan aragnay. markaan dareenkayga aan raaco, kadibna natiijada ka soo baxda aan wada aragna Shiriinay. waaya xasanoo, bal nabad waa yaabee, aan aragna halka uu nagu hogaamiyo dareenkaada. markaas ayaan tallaabadii qaaday si aan u dhexgala qaansadii saddexaad. hase yeeshee waxaa ii soo muuqda wiil dhallinyaro ah, kaasi oo ku labisnaa labis la mid ah midkii ay dadka reer Bakistaan ay xirtaan ee qamiisyada Abu Bakistaaniga loo yaqaano. wuxuuna qamiiska uu wada midabkiisa u ahaa mid aad u cad.
wiilkii ayaa ii soo muuqday isaga oo weliba dhoolla caddaynaya, waxaanu igu yidhi, orda oo baxa kana gala qaansada labaad. waan istaagay aniga oo weliba isgeejinaya. wiilkiina wuxuu bilaabay in uu qoslo. markaas bay Shiriin intii shaarkii ay iga jiiday gadaalna ay ii celisay waxay igu tiri, soo bax aan qaansada labaad ka galna ee. markii Shiriin ay sidaasay tiri ayaan xoogaa fakeray, kadibna waxaan ku idhi, waxay ila tahay inay khiyaano tahay, waana ogaan doonaa midaas ee kaalay bal aan fiirinay qaansooyinka kale si aan kuugu caddeeyo in khiyaano ay tahay hadalka wiilka. markaas baan waxaan hor istaagay qaansadii afraad aniga oo dhex gelin. hase yeeshee markii aan hor istaagay ayaa haddana waxaa iga soo horbaxay gabar aad u qurux badan, taasi oo ku labisneed dhar aad u bilicsan oo dahabka iyo xariirta ka samaysan. markaas ayaan meeshaydii istaagay aniga oo la yaaban quruxda dabiiciga ee gabadhan, waxaana gudagalay inaan daawado. hase yeeshee gabadhii ayaa ila hadashay, waxayna igu tiri, wiilku wuxuu idinka dalbaday inaad qaansada labaad aad ka gashaan albaabka ee orda oo qaansada labaad aada. markii gabadhii sidaasi ay igu tiri ayaa mar kale Shiriin ee ijiida iyadoo ii sheegtay in qaansada labaad aan u jihaysanaa, balse gacanteedii waan iska fujiyey waxaana u jihaysta qaansadii shanaad. kadib markii aan hor istaagay baa haddana wiil kale iga soo horbaxay, wuxuuna labis ahaan u ekaa wiilkii hore, waxaana uu yidhi, soo la idima dhihin inaad qaansada labaad aad albaabka ka gashaan. haddana warkaasi ma aana yeelin, waxaana u jihaystay qaansadii koowaad. waxaana iga soo horbaxay wiil kale oo igu yidhi, haddiiba qaansada labaad la idiin tilmaamay, maxaad halkan ka soo doonteen? markaas ayaa shaki kale oo igu abuurmay, halka Shiriin ay igu noogaysay mar walba sidii ii lahayd aan aadna qaansada labaad. hase yeeshee waxaan isku dayay inaan u sharaxo in meesha khiyaano ay ku jirto, waayo haddii aysan khiyaano ahayn maxay arrinta noogu sharaxayaan oo ay noogu fududaynayaan. markii sidaas aan ku yidhi Shiriin oo ay igu noogtay inta igu xanaaqday ayay igu tiri, ma waxaad doonaysaa in aad xoog iigu caddayso in dareenkaaga run uu kuu sheegayo? haddii aysan noo oggolayn in aan galno, mar hore ayayna dili lahaayeen oo ay noo diidi lahaayeen. inayna khiyaano nagu sameeyaanna waxay ku falayaan ma lahan. maxaad ismoodda adiga? maxayna ka faa'iidayaan khiyaanadaada? adinka basharkiina sidiinaba la yaab ayaad leedihiin, wax walba oo fudud oo aad isku adkaysaan. markaas ayaan hadalkii qaatay oo waxaan ku jawaabay, digniintayda waad iska indhadirtay, aan qaansada labaad ogaano si ay kuugu kala caddaato midkeenna saxan labadeenna. markaas ayaan in badan soconnay, waxaana hor istaagnay qaansadii labaad. kadibna waxaa iga soo horbaxay gabar aad u qurux badan, waxayna cod aad u jilicsan ee nagu tiri, soo gala, soona dhowaada. balse aniga sanam camal ayaanba u istaagnaa oo aan la yaabanaa quruxda gabadha ay hortaagan. maxuuralcayntii jannada ayaa ila hadlaysa. hase yeeshee jawaabtii aan helay waxay noqotay in Shiriin jug ay isiisay iyada oo leh, dhaqaaq oo hore u soco, sanam camal ha u taagnaanine. markaas baan qaansadii dhex galay, in yarna aan soconnay, kadibna waxaan is aragnay annagoo hortaagan albaabkii weynaa ee dartiis dhibkaan iyo rafaadkan aan u soo marnay. sidoo kale Shiriin qudheeda way istaagtay si ay u daawato albaabkan dhagaheeda wax badan ay maqlayeen. kadibna waxaan ku idhi, namari aan albaabka furnay, kadibna culuumta sharta aan soo qaadanay si aan dhaqso dib aan ugu soo laabanno. markaas ayay iyadoo hadalkaygii la yaaban inta ay kor iyo hoos ii fiirisay waxay igu tiri, caqli xumo ayaan kugu ogaayay, haatanna ma indhala-aan ayaad ku darsatay. miyaadan arag weyninka albaabkan? albaabkan furistiisa wuxuu u baahan yahay 1,000 nin oo adiga kula mid ah. marka sidee labadeenna aan ku furi karaynaa? u malayn maayo in aan joogno mowqif noo ogolaanaya in albaabkan aan furno ama aan go'aan aan gaarno. keliyana waa in aan sugnaa waxa xiga ee dhici doona. cabaar ayaan meeshii aan fariisanay, wax badanna ma aanan sugin. kadibna waxaa dhacday in albaabkii weynaa hoostiisa ay ka soo muuqdaan 2 albaab oo aad u yaryar. kadibna albaabadii yaryaraa ayaa furmay. waxaa ka soo baxay 2 gabdhood, kuwaasi oo midi xaggayga u soo jihaysatay, midda kalaana dhanka Shiriin ay aaday. waxayna inaga dalbadeen in aan raacno. aniga xoogaa waan ka labalabayay, balse Shiriin ayaa igu boorisay inaan gabadha aan raaco. sidii ayaana ku raacay. elbiriqsi kama aysan soo wareegan, waabana kan annagoo taagan albaabka gadaashiisa. kadib waxaan arkay barxad aad u weyn, taasi oo tiirar waaweyn iyo hoosas la mid ah kuwii aan ka soo gudubna lagu qurxiyey. waxaana ay gabdhihii naga dalbadeen inaan horey u soconno. markii aan barxaddii dhammaadkeedii gaarnay ayayna yidhaahdeen, xoogaa yar halkan nagu suga. markaas ayaan Shiriin weydiiyey, maxay tahay sababta ay noogu furi waayeen albaabka weyn? maxayse tahay sababta ay mid kasta oo naga mid ah albaab yar ay u fureen si aan annaga u galno?
Shiriin ayaa markaasi hadalkii qaadatay oo waxay igu jawaabtay, waxay ila tahay maadaama aan laba adduun ka soo kala jeedno in sidaasi ay noo kala geliyeen laba albaab oo kala duwan. kadibna iyadoo hadal jees-jeesa igu dhahaysa ayaa waxay igu tiri, sababtay albaabka weyn noogu furi waayeen soo maahan. waxay u muuqataa inaysanba ku aqoon oo ayba aqoon ku lahayn qofka aad tahay iyo miisaankaaga culus. marka way kuu qaldameen ee iska saamax oo iska cafi inaad adiga xasan tahay ma aysan ogeyn oo ha u qaban. jees-jeeskeeda waxaan ka fahmay in albaabkaasi weyn aan loo furin qof uusan sha'nigiisa weyneyn. annagoo meeshii iska joogna waxaan aragnay gabar iyo wiil noo gacan haatinaya, kadibna way noo soo dhowaadeen annagoo ay naga dalbadeen inaan raacno. halkii ayaan ka soo raacnay, waxaana aan soo dhex galnay beer aad u weyn, iyadaoo wiilka iyo gabadhay ahaayeen kuwa sheekaysta oo isla kaftama islana qoslaya. markaas baan Shiriin waxaan weydiiyey maxay ka sheekaysanayaan. Shiriin oo su'aalahayga tirada badnaa ka yaaban ayaa waxay igu tiri, maxaa kaagal adiga waxay ka sheekaysanayaan? adiga markaan su'aalahaaga waa bateen, ayaga waxay ka sheekaysanayaan arrimo aanan muhiim ahayn, balse sidaas oo ay tahay waan kuu sheegayaa. gabadha waxay wiilka ku leedahay saaxiibtay ayaan berri raacayaa, isagana wuxuu ka dalbanayaa inay u sheegto saaxiibteed wixii ay ku heshiiyeen. kadibna waxay ugu jawaabtay maya ma samaynaya midaas. kadibna isaga wuu qoslayaa, qosolkaasna wuxuu yahay tarjumaad uma baahna. haatan ma waxaad iga rabtaa inaad afkaartooda aan akhriyo si aan kuugu sheego waxa niyadooda ku jira. adiga aakhirkii warjecli ayaa lagugu cadaabi doonaa. anigii waan iska aamusay ilaa nin dhinac lagu kuusay ayaa noqday. halkii ayaana socodkii aan kasii wadnay ilaa ugu dambeyntii aan kasoo gaarnay guri aad u weyn, kaasi oo shabaha oo u eg qasri aad u weyn. waxaana aad iiga yaabiyey in guriga uuba ka samaysan yahay isaga oo dhanba dhallo, albaabada, derbiyada, saqafka, xitaa sagxadda iyo dhulkaba gabi ahaantood waxay ahaayeen dhallo. gurigii ayaan iska dhex galnay. markaas ayaa wiilkii iyo gabadhii ay naga tageen oo halkii ay ka yimaadeen ayay ku laabteen. annagana waxaan gudagalnay inaan guriga aan isha aan la raacno. kadibna waxaa noo soo galay wiil dhallinyaro ah oo dhar madow xiran, isagoo aan marnaba nala hadlin ayuu gacanta noogu tilmaamay inaan isaga raacno. wiilkii ayaa haddana aan sii daba kacnay ilaa aan tagnay beer nasasho ah oo aad u weyn. kadibna waxaa noo yimid 2 nin oo odayaal ah oo da'dooda aysan ka yareen 70 sano. waxay naga dalbadeen inaan iyagii aan sii raacno. yaa allah, mid kasta oo inoo yimaada inta uu meelna geeyo ayuu naga tegayaa, ku kale ayaana sii xawilanaya. waama ku noognay sidaane, balse fursad kale iima aysan bannaaneen. odayaashii ayaana sii raacnay, waxaana sii dhex marnay dhul geeda ah oo aad u qurux badan ilaa ugu dambeyntii aan ka gaarnay derbi aad u weyn. xitaa waxaa nagu adkaatay in midkeen isha uu la raaco ilaa uu ka ogaado halka uu ku dambeynayo derbigaas ama uu ku dhammaanayo. markii aan derbigii hor istaagnay ayay odayaashii ay naga tageen, waxaana ina yidhaahdeen halkan fariista. kadib markii odayaashii ay naga tageen, waxaa dhacday in dhagax weyn oo derbiga dhinac kaga tiirsanaa uu meeshii uu ka dhaqaaqo, waxaana gadaashiisa ka soo baxay albaab yar. waxaana hor istaagnay albaabkii si aan u aragno cidda cusub ee naga furi doonta. markii aan xoogaa sugnay albaabkii qof naga furana aan weynay ayaan albaabkii riixnay oo waaba furan yahay. markaas baan galnay oo gudahii aan usii dhaqaaqnay. hase yeeshee mar alla markii aan gudahii galnay ayaa albaabkii keligiisu isxiray, sida in naloo sheegayo in aysan jirin waddo kale oo aan dib ugu laabanno. markii aan albaabkii ka gudubnay ayaan aragnay dhul engegan oo qallalan iyo qorraxda oo aad moodo in kuleelkeeda la laba jibaaray. mana jirin hal geed oo meesha ku yaala kaasi oo aan qorraxda aan kaga gaban karno. markaas ayaan Shiriin waxaan ku iri, halkan miyaan taagnaanaynaa mise waan sii soconnaa? maxaa tala oo aan samaynaa? meeshaan lama joogi kara. Shiriin waxay juhdi badan ay ugu jirtay sidii ay indhaheeda ugu ilaalin lahayd ilayska qorraxda. arrintaas oo aan u fahmay in aysan caado aysan u lahayn aragtida qorraxda. markaas baan dhankii qorraxda aan ka maray si aan gabaadaan ugu noqdo. kadibna waxaan weydiiyey, miyaa nala khiyaanay? maxay tahay dhulkan jaxiimada aad moodo ee nala keenay? kadib waxay iigu jawaabtay, u malayn maayo in nala khiyaanay, adigana degdegta jooji, waan sugaynaa wixii dhaco waana arki doonaaye. markaas baan ugu jawaabay, meeshaan saacad ma sii joogi karo oo mana adkaysan kara kuleylkan qorraxda ee maxaan samaynaa? waxay iigu jawaabtay, meeqa mar ayaan kuu sheegayaa, doorasho kale ma lihin, waayo meel aan aadno oo aan naqaano ma jirto. aniga jirkayga wuu awoodaa in uu u adkaysto kuleylka qorraxda.
inkastoo aan u bartay in aan hoos ku noolaado, balse dhibka jira wuxuu yahay in indhahayga wax badan qorraxda aan ku fiirin karaynin oo aan indhaha ka dareemayo xanuun iyo indhoolannimo. meeshii ayaan xoogaa joognay, wax soo socdana uma jeedno. Markaas ayaan bilownay inaan hoos raadino. wixii aan soconnaba oo aan hoos iyo gabaad aan raadinaba waxba ma aanan arkin. taladii ayaana nagu caddaatay dhulkii ma fadhiisan karno, oo isagu waa dhimbil oo kale, geedna ma hayno. markii xaalkii nagu xumaaday ayaa Shiriin waxaan ku iri, maadaama jirkaada awood u leeyahay inuu u adkaysto iftiinka qorraxda, dharkaada iska siib si aan uga dhiganno hoos aan ku gabanno. markaas bay inta yara qosashay waxay tiri iyadoo xishood dareemaysa oo gacanta wejiga saaratay, waxa aad iga dalbanayso waa ihaano Xasanow. markaas ayaan ugu jawaabay, maxay tahay ihaanada aad sheegaysid, mise waxaad ka xishoonaysaa inaan jirkaada arko? inaad furii tahay haddii aan ogaan lahaa, jawaabta kugu habboon ayaan ku siin lahaa. cabbaar ayaan soconnay, waxaana markii dambe aan kor imaanay derbi meesha ku yaalay. kadibna derbigii ayaa waxaa haddana uu noqday mid ka hor wareegay dhagax ag yaallay, waxaana ka soo baxay albaab yar. albaabkii dhankiisii ayaan aadnay, balse xilligan albaabka waxaa nooga soo baxay nin aad u xoog badan oo aadba moodo inuu ahaa abaanduule ciidan. markaas ayuu amar nagu siiyey inaan isaga aan raacno, wuxuuna xoog badnidiisa dartiis uu ahaa mid markii uu tallaabada dhulka dhigaba dhulka dhan uu gariiraya. dhankii albaabka uu ka soo baxay uma uusan socon, balse waxa uu sii aaday dhankii kale isagoo derbigii dhinaciisii ku socday. annagana waxaan daba kacnay ninkii, wuxuuna socod nagu waday masaafo gaaraysa ilaa 2 kiiloomitir, ilaa daal xoogan aan dareennay. balse ugu dambeyntii waxaa naga soo horbaxday teendha meesha ku taalay, waxaana teendhadaasi ku dhex yaalla miis iyo kuraas dhowr ah. ninkii ayaa amar nagu siiyey inaan kuraasta fadhiisanno, balse annaga dad amar u baahan maba aanan ahayne, yaa idintu sahar ama hoos ayaan ahayn, oo samirkii ayaana naga dhammaaday. amar la-aan annaga ayaaba ku ordayne, qorraxdiina halkii ayaan ka galnay. markii aan xoogaa meesha ku nasanay ayaan ninkii aan isku daynay inaan la hadalno oo su'aalo aan weydiinno, balse inta aysan bishamahaynin dhaqdhaqaaq sameynay ayuu yidhi, aamus waryaa, hana isku hadlin adiga oo aan hadal lagaa dalban. markii uu sidaasi ugu yidhi ayaan iska aamusay, balse waxay indhihii Shiriin aan ka dareemay cara iyo xanaaq aad u weyn. ma garanayo sababtay u xanaaqday, ma waxay ka xanaaqday qaabka aan fiicnayn ee ninka uu iila dhaqmay, mise waxay ka carootay in iyada sideyda oo kale loola dhaqmi doono. ma garan karayo, balse Shiriin xanaaq culus ayaa ka soo muuqday. ninkii isagana wuxuu noo fiirinaya qaab kibir iyo yasma ay ku jirto, wax jixinjixa wejigiisa kama muuqan. markaas ayaan is iri, allahayow, meeshaan balaayada ka soo socota iga badbaadi. sidii ay isku eegayeen wejiyadooda qayr kama soo muuqata ee. cabbaar markii la aamusnaa oo indhaha la isku gubay ama la iskuurkuuray ayaa ninkiyaa soo hadlay oo waxa uu yidhi, anigu waxaan ahay Barsaad. halkaa inoo joogta qaybta xigta ee sheekada ku saabsan xaaskayga Jin bay ka ahaatay. waa inoo qaybta kale oo xiiso badan insha Allah. saaxiibkeen Cabdiraxmaan Xasan Anteena ayaa tarjumay qaybta xigta intaan ku kulmi doona. nabadgelyo.